dhalinyarada gurmadka gargaarka beledweyne ee magaalada Ceergaabo ayaa habeennimadii xalay soo bandhigay deeq lacageed taasi oo ay ka soo ururiyeen dhammaan bulshada magaalada Ceergaabo isla markaasina ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan deeqaha gargaarka bini'aadantinimo ee walaalaha tabaalaysan ee ku dhaqan beledweyne. Dhalinyaradan ayaa toddobaadadii la soo dhaafay magaalada Ceergaabo ka waday qayb qaadashada gurmadka walaalaha beledweyne ee masiibadu aafaysay. Waxaana dhalinyaradan sheegeen inay qadar lacag ka soo ururiyeen bulshada kala duwan ee magaalada Ceergaabo iyagoo ugu horeyn halkaas uga mahadnaqay cid kasta oo qayb ka qaadatay isla markaasina gacan ka geysatay kaalmaynta gurmadka walaalaha beledweyne. waxaynu halkan isugu nimi inaynu hawl aanu muddo ku soo jirnay oo ahayd u gargaar walaalaha beledweyne ee ka bilaabatay degmada Ceergaabo caawa lagu soo gabagabeeyo halkana lagaga dhawaaqo natiijadii ka soo xirootay dhalinyarada la magac baxday gurmad lacagtii ay soo ururiyeen natiijadii gacantooda soo gaadhay inay halkan caawa kaga dhawaaqaan baynu u fadhinaa idanka Ilaahay rabbil caalamiin halkan waxaan kaga dhawaaqaynaa caawa aan isugu nimi waxa weeyaan lacagtii aanu aruurinay walaalaha reer beledweyne dhalinyarada reer Ceergaabo ee qaybaha kala duwan leh ay u kaceen qadarkay tahay aan ka soo aruurinay magaalada Ceergaabo degmada Ceergaabo inaan halkan kaga dhawaaqno insha Allah waxaan u kala sameyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo sectionada ay ka kala yimaadeen mise qaybaha ka kala yimaadeen haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ugu horeysiinayaa goobaha waxbarashada ay ugu horeeyaan jaamacadaha iyo sekondariyada iyo KG-yadu lacagta goobaha waxbarashada ka soo xarootay waxa weeyaan 1733.8 waxaan ku darayaa oo aan raaciyaa ganacsatada waaweyn ee magaalada waanu duceynayno oo ay bixiyeen qadar dhan 3400 labada section marka la isku daro lacagta ka soo xarootay waa 5154.46 senti waxaan ku darayaa goobaha ay ka midka yihiin masaajidada oo jimcihii hore laga kacay iyo suuqa xaraashka ugu horeeyo oo subaxdii ugu horeysay aroortii baan ka bilownay shaqada ee magaalada Ceergaabo lacagta ka soo xarootay marka la isku daro labada goobood iyo small businesska yaryar ee magaalada ka jiraba waa 7273.95 dollar totalka guud ee wadarta lacagta aan magaalada Ceergaabo ka soo xaroonay ee aanu kaanay ahayd lacagta ay dhalinyaradu soo ururisay ay muddada 10 cishaan ay wadeen waa 12428.41 senti waana arin farxad iyo bogaadin muran runtii shaqo cusub culus baa la qabtay waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waxaan u mahadcelinaynaa ardayda yaryar ka qayb qaadatay waxaan u mahadcelinaynaa maaragtay ganacsatada yaryar kuwa waaweyn iyo dadka maaragtay runtii dhaqaalaha inta la eeg dhalinyarada maaragtay u fududeeyay hawshaasi inay maaragtay saa u hirgasho reer Ceergaabo waxaan u leenahay caawa kuniyad samaada waxa laga yaabaa in su'aalo badan la isweydiinayay marka waxa weeye waad aragtaan sida shaqadu u socoto sidoo kale lacagtan marka beledweyne gaadhana waa daawan doontaan waa la socon doontaan ilaa shilinka aynu bixinay uu gaaro meesha loogu talagalay hadii alla yiraahdo lacagta 12,000 iyo dheeraadka ah waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankii wax ka badanna dhalinyarada gurmad inay u istaagto qabtaan oo gobolka iyo maaragtay masiibooyinka la soo gudbonaan kara iyo wax kasta oo samafal ah inaan ka wada qayb qaadano waxa in la sheego mudan dhalinyaro aan aqoon runtii oo maaragtay isku timi oo dantu midaysay oo ilaa hadda shaqadan ku midaysan maantana de shaqadu aan halka ku ekeyn insha Allah aanu rajaynayno markaan wax badan aragnay in wax badan la sii qaban karo waxaan ilaabayn maaragtay hooyooyinka xaraashka fadhiya oo maaragtay maalin u qaday reer beledweyne dartood ganacsatada Ceergaabo isku duuban cid kasta yihiinna waanu mahadcelinaynaa dhammaan bulshooyinka reer Ceergaabo qaybahooda kala duwan goobaha tacliinta oo jaamacada leh oo iskuul leh oo KG leh oo malcaamada leh intaba waa u mahadcelinaynaa sidoo kale ganacsatada waaweyn oo door muhiim ah ka qaatay si sharfana noo maamuusay oo soo dhaweyn badan noogu sameeyay markaan barnaamijkan iyo dadkan aan walaalaheena u gurmanayno kala hadlaynay si fiican noo soo dhaweeyay waxa mahad gaar mudan hooyooyinkii sida laga dhawaajiyay xaraashka joogay way mahadsan yihiin hawl bay qabteen caam oo hawl bulshada hawl umadeed bay qabteen hawl qaran bay qabteen waxay noodan karaayo hawl dan shakhsiya ma qaban mahad gaar bay mudan yihiin insha Allah sida laga dhawaajiyay lacagta 12,000 iyo siyaadada waa guud ahaan gobolka Sanaag maaha gobolka Sanaag degmooyin badan baa ka qayb qaato Ceergaabo ka mid tahay Badhani ka mid tahay marka intana waa degmada Ceergaabo oo kaliya muddada kooban kaga soo ururtay marka insha Allah markay gaadhana clipka iyo waa daawan doontaan waxaan ugu talagalay in lacagtaas oo sidaas
ay dadkii ay nagu talagalay ay gaadho